daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono shirkadda One Essential oo iyadoo qiimo dhimis u sameysay bulshada ku xidhan ama customer-keeda ka iibsata alaabtan oo ka kooban 5 item oo sidoo kalena tayadooda iyo waliba quruxdooda leh sidoo kale waxa soo socda alaab hadda ka hor aad One Essential uga barateen oo ahayd 6 item ama 6 xabo ka kooban oo iyaguna 100,000 la siinayay discount ay sameeyeen waa discount ama waa qiimo dhimista ugu sareysay ee abid ay sameeyaan marka hore 140 ayay siinayeen 5 waxyaabood laakiin hadda 100,000 ay daawadayaashu ama customer-ka ku xidhan kuwana daawanaya oo kale waa customer-kii uune ay ugu iman karaan una soo hagaagi karaan kuna iibsan karaan waxaan leeyahay markaasi ha ka maqnaanina ha moogaanina One Essential bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ma hadla mar labaad nagu kulmiyay halkan waxaan ku suganahay One Essential waxaan soo dhaweynaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta joogan iyo customer-kayga qaaliga ah mar walba si fiican ugu xidhan alaabtii ayaan discount ku sameynay 5 shay isla socday waxaa marka hore 140 laana imka waxaan ka dhignay 100,000 laana waayo mar walba waxaan u daraynaa bulshadeeda iyo macmiilkayga waayo dadku mar walba ma wada awoodi karaan wax qaaliya darteed mar walba waxaan jecelnahay inaan dadka discount u sameeyno u jabno alaabta waayo ganacsiga wixii jabay barakad ku jirta mar walba marka shantii item hore aan isticmaalinay waxay haayeen kuwan alaabtii 6 shay hore aad u qaadan jirteen 100,000 ahaana insha Allah way noo imanayaan 5 shayna kuwan bay kala haayeen shaamboogan timaha oo dacar ka samaysan oo timaha daadashada aflaaqada jajabka toxobta waxa timaha ka binayay oo xataa dacar faa'iidada qofku dadku waad ogtihiin qof markuu madaxa xanuunaya kala dacarta waa ka madaxa iskaga shuba marka faa'iido badan ay dacartu leedahay saliidan timaha oo iyaduna timaha bixi waayay amba timaha gunta ka soo go'ayo kale loogu talagalay in timaha ay qabato daadanaya kuwa bixi waayay inay soo saarto ee gunta ka soo go'aya cream-kan wajiga cream-kan dadka qaar waxay moodaan inuu wax chemical amba weytin ku jiro horta anagu wax chemical asliin ma iibino cream-kan waa cream natural cid walba way isticmaali kartaa rag iyo dumar xataa waa la isticmaali karaa wixii hadaan weytin ku jirin waa wax mar walba la wada isticmaali karayo cream-kan wuxuu biyaa wixii wajiga ku jiro dhan dibicilin buu wajiga ku sameeyay dibicilinta yani waxa ka dhigan tahay wajiga originalkiisi hore ayuu ku soo celinayaa wixii doona qofka wajigiisa ka soo baxaan wajiga color buu ka dhigay xataa dadka gubto kale waa naga qaataan way soo isticmaalaan ma sha Allah caawiya xitaa hablaha xagtimaha le wad garanaysan xagtimaha green biya inta badan ma jiro chemical dadka si waasha mooyaane marka cream-kan xataa xagtimaha wajiga hablaha ku yaalo kale uu ka binaya insha Allah face cream-ka ragga isagana ayaanu keenay raggu bariga hore kan dumarka iska isticmaali jireen waayo qofkii hadaan cream-kii dadkii isbedel ku sameeyeen weytina aanu ku jirin chemical aanu ku jirin wax la wada isticmaali karo cream-kan ragga xataa laba jir ilmaha ka weyn ilaa qofka weyn uu isticmaali karaa wax qofka bedelayana ma aha wax kaliya qofka nadiifinaya oo caadi ka dhigayo colorkiisa caadiga soo saaraya cream-kana waa green body lotion oo jirka isagan la marinayo lugayga macaa jirka inta kale aan wajiga ku jirin jirka wuxuu ka biinayaa dildilaaca dadku markay miisaankooda isdhimo kala dildilaac yeeshaan marka green-da kale hargeysa wali lama keenin green biya dildilaaca jirka marka green-kan wuxuu biinayaa hablaha ka caawinaya dildilaaca jirka ku yimaada jajabka waxa soo dhan insha Allah rag iyo dumarna waa wax la isticmaali karo oo la wada marsan karo marka 5 shay aan idin sharaxay hore soo xusay ayaa la isku siinay 100 laana 140 marka hore ahayd macmiishada mar walba waxaan jecelnahay inaan u jabino horana in ku sheego ganacsigu barakada intuu jamay barakadu ku jirtaa marka mar labaad iyo mar koobaad ba bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta joogan waan soo dhaweynina One Essential mar walba waxay doonaysaa dadka dan yarta si wixii loo wada isticmaalo qofkii waxay istiika waxba haysaninba ay wada awoodaan wixii wada iibsan karaan marka aad baa idin soo dhaweynaya magacayga waa Fana Cabdiwali Xuseen alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wuxuu suura galay inay mar labaad isi soo hor istaagno insha Allah waxaan rajaynaynaa mar labaad mar saddexaad isi soo hor istaagi doono kulli saad aragteen aniga shashada wadiga aragteen oo waxaan ahaa customer-ka aad ugu xidhan alxamdulillaah rabbil caalamiin walow discount loo sameeyay maanta waxay maaday discount cusub taas oo loogu sameeyay 5 shay oo ka koobna 5 shay jirkaaga de walow loo isticmaalo gacmaha lugaha timaha iyo wajiga alxamdulillaah rabbil caalamiin wax badan discount loo sameeyay walow barkii hore 140 buu hadda 100,000 oo laana ayaa la siiyaa shilinka Soomaaliland 5 shayba
kan waa shaamboogi waxba fasir kari maayo oo dadka hablaha hore iga horeeya soo fasiray kan waa saliidi tani waa grimkii hablaha wajiga nadiifinayay kan waa buriga ilaa jirka gacmaha kaliya tamaha walow uu yar yahay jirka taasoo la socdo qarqaraxa hablaha meel walay tahayba uu ka biinayo tan waa kii ragga daldaloolkii iyo finankii waxaale kaaliska arag buu ka dhigayaa waayahay waxaa dhinacayga taaganaya doonaa kastamarka labaad oo alaabtan soo isticmaashay sidoo kalena qiimaha dhimistaasi ku iibsatay walaaldoo magacaaga saddexan ku bilaabaya bal looga waran alaabtan iyo tayadeeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومشتاق عبد محمد وحانا كميدا هاي كستمر كون أسيشيال كحران ألعبت المركي هو روحنا لقيسين تري بقالي فرتكون لكن إما قيمة دمس بلسمية وحنا لقى بقول كنا شرين ألعبت وان استعمالي هرنا وان استعمالي هذا وان استعمالي هذا ندي كلا تلمامو أنا قبل haddaan idii tilmaamo waxa weeyaan kan waa shaamboogi madaxa dacar buu ka samaysan yahay marka jajabkii waxaa madaxa uu ka ilaalinayaa aadna u fiican yahay kana waxa weeyaan gareemkii dildilaaca hablaha jirku dildilaaciyo waxaas buu aad ugu fiican yahay dildilaaciyo waxaana uu ka ilaalinayaa waanu ka biyanayaa aadna u fiican yahay kana waa saliidi madaxa jajabkii waxaas ilaalinaysaa timahana aad bay kuugu bixinaysaa wax la wada tijaabiyey gareemkii wajiga waytin xooga ma laha laakiin aad buu fiican yahay wajiga ku dhalaalinayaa chemicalkii waxaanu ka wada saaraya intaas ka kooban tahay aadna waan isticmaalnay wad isticmaashay wad iibsatay waa markii imika labaadeen isticmaalo aadna u fiican yihiin waayahay waxaan haddana u yeedhayaa kastamarka labaad oon leeyahay walaal soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Nimco Cabdirashiid Jaamac waxaan ku suganahay kambaniga weyn One Essential so waxay iibiyaan alaabo tayadooda aad u sareyso oo tayadooda aad u fiican maasha Allah inkastoo discount noo sameeyeen oo awal 5 alaabood oo isla socda ah shaamboo iyo saliid iyo 3 cream waxay ahaayeen awal 140,000 oo shilin Somaliland haddana waxa waaye 100,000 oo shilin Somaliland marka aad baan ugu faraxsanahay kulay shaamboogan aad arkaysaan dacar buu ka samaysan yahay wuxuu timaha u taraa jajabka iyo nafaqada iyo xaweeyaan taxobta iyo timaha daadashan iyo aflaaqada leh kulay saliidan aad arkaysaana way yartahay laakiin tayadeeda aad u badan timaha gunta ka soo go'aya bay naasibtaa timo dhimic badan oo qurux badan bay noqdaan kareemka arkaysaana waa body lotion sida gabdhaha jirkooda dildilaaca leh way naasibaysaa waana kareem aad u fiican waan isticmaalay kan aad arkaysaana waa face-ka la mariyaa kareem face-ka weeyaan sida wajiga tushtuushka leh iyo wajigu naasibay weytin xoogana ma laha oo wax natural oo la hubo kanna waa kareemka face-ka ragga isaguna uu naasiba ilmaha laba jir ka sareeya ayaa marsan karaya ilaa ragga waaweyn aad baan ugu faraxsanahay nagu soo biir waayahay intaasi waxaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka aanu ku eegnay qiimo dhimista ay sameysay shirkadda One Essential waxaan leeyahay mar haddii aanu barnaamijkii soo xidhnay oo aanu soo gabagabaynay alaabtii 100,000 ayaad ugu soo hagaagaysaan meesha ay ku taalana waa taqaanaan shirkaddu xaysiiskaad ka arki doontaan sidoo kale waxa la idinku soo qori doonaa shaashada intiina badanna waa taqaanaan goobta ay ku taalo waa Bulsho TV iyo Mune Maxamuud Saqdo idinkaga tagaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.